halkan waa tilmaantii baaxiyada qadariga qiimaha nagala socotiin oo suuqeena waa si khaas ah oo yeelanay jalaal Sheekh Ibrahim oo taqaaniin oo falanqeeya siyaasadda geeska Afrika sida political analysis Horn of Africa jalaal Sheekh Ibrahim oo taqaaniin barnaamijyada tilmaan TV-na la dhabarta daadiinta ayaa hadda waxaan nala wadaagayaa wararka ugu dambeeyay ee dagaalka socda Ethiopia waxaan isku daynaa week kasta inaan idin soo aruurino dhowrkii maalmood wararka xaaladda cakiran dalka Ethiopia oo markaa jamaal nala wadaago wararka ugu dambeeyay marka taasi u diyaar garooba waa barnaamij cusub oo aanu hadda idin diyaarin doono wixii hadda ka dambeeya laba maalmood iyo saddex maalmood ba aan wararka intaan soo aruuriyo jamaal aan markaas waraysi la yeelano idin soo tibina idinkana jamaal welcome soo dhawow bal waxaad warbixin naga siisaa dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Ethiopia gaar ahaan kilka Tigreega iyo meesha lagu dagaalamay ee ah kilka Xabashida wararka ugu dambeeyay nala wadaag maxaa hadda soo cusbaanaaday maalmihii ugu dambeeyay shalay ilaa maanta معتمد إنجنير أحمد أخيارتنا داونا يساوي ذا سو مريء سلام ديران waxaynu la soconay isbedelka guud ahaan dagaalada qaabku u socdo waxa weeyaan waxyaabahan hadda inta badan iska caadi noqday baa jira sida military Ethiopia oo markaas noqday sidii ari kolba meel laga soo xayn ari laga soo kaxaynayo boqol shan boqol kun raxan loo soo qabanayo marka ciidamadan ka soo horjeeday marka Tigray Defense Force bay hadda la baxaysan oo hadda maqlaan labada qaybood bay u kala baxaan qaybtan Tigray joogtana waxa weeyaan waa Tigray Defense Force wixii Tigray ka soo baxsan waa Tigray Armed Force marka Armed Force ku waxa weeyaan طبعا noocyo fara badan buu leeyahay oo qoobtii waxa ku jira goobtii maxaan ku raaqo gutooyinkii lahaa technical iyo dabaabadaha iyo waxaas laga yaabaa inuu ku jiro marka armed forces iyo defense force طبعا waxbu yar baa u dhaxeeya waxyaabaha ay doonayeen inaynu hadda fahanno weeyo markay newskeena la wadaagaya waxay u kaadi dadka inuu kala cadeyno kuwa ka dagaalamaya muxuu ahaa kilka Xabashida iyo Cafarta waa Tigray Defensive Force weeyaan miya qaybaha aynu hadda aynu maqlayno sida iyagu u dhigayaan waxa weeyaan Tigray Armed Force haye TAF marka waxa weeyaan inay ciidankii noocaas u bedelmay oo hadda waxa weeyaan waxay helaan dabaabado fara badan taangiyaal madaafiic waxyaabo badan bay hadda furteen Soomaa oo ka qabsadeen ciidankan federaalka Ethiopia ka qabsadeen dabcan waxa weeyaan mid labaad difaacidii kilka Tigreega kaliyana hadda macnaha action kii dagaalku u dhaafay oo waxa weeyaan wuxuu sii marayaa in hadda dasi la sii dhaafo compulsion la dhaafo meesha la yiraahdo chifra la dhaafo laba kilo oo dirisa marka inay gudaha u galeen marka istaraatiijiyo ku salaysan ciidankana ku dabaqan waa inay la yimaadaan marka waxaynu ogaan doonaa inay magacii hore ka guureen iyo labada ciidan inay dabcan toore ay defense integrate ay tahay tan kalena inay armed force ay tahay marka armed force kaasina waxa dhici karaysa maybe inay ku dhex dari doonaan ciidamadan kale hadda ay qabsanayaan iyo jabadahan kale iyo waxyaabo noocaas oo kale maybe inay arinku saatahay marka this is what we heard hadda oo maan ka maqalnay madaxdooda Tigray Armed Force marka waxa laga yaabaa wali isla ciidankii uu weeyay laakiin ciidankii oo qayb kamid inuu yahay ama section ka simida inuu yahay oo kale Ethiopia sidii noogeen waxay lahayd makala kiyaabay lahayd waxay lahayd waxa la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa presidential guard ama qoladan markaa madaxtooyada ilaalisay koofiyada guduudan waxay lahayd oo kale kuwan la yiraahdo ama booliska Ethiopia markaa inay sarifato ciidanka noocyaba u kala yeesho waa wax lagu yaqaanay marka dabcan waxa weeyaan booliskii laftoodii iyaga hadda aanu la jirin baanu malaynaya Lewhailkii dabcan waxa weeyaan waxaynu hadda ka naqaanaa jooga meesha la yiraahdo Tigray waxa weeyaan waa Tigray Defense Force bin maqlayn wuxuu dhan waxa isku noqdeen Tigray Defense Force hadda waxa kale aynu maqlaynaa inuu soo kordhay ayaa Tigray Armed Force haddii aan soo noqono dhacdooyinkii ugu dambeeyay su'aasha meesha injineer Axmed inaga weydiiyay waxa weeyaan
dhacdooyinka ugu dambeeya hadda oo aad aynu dadka uga soo xuli karayna ayaa ah in ay hadda kala go-an yihiin ama ay meesha ka baxday kala amar qaadashadii iyo kala war qaadashadii central commandka Addis Ababa iyo jiida hore ciidamada ku jira hawlgelin hadday noqoto amar bixin hadday noqoto in markaas iyo report hadday noqoto markaas oo kale maxaa dhintay maxaa nool amar qaadashada oo markaas ah in wixii uu amarku ka yimaado xaggan Addis Ababa waqtigaa dagaalka qaada sidaa u dagaalka qaada instructionkii de commandka amarka ayada la garanayo taas lama hayo waxa weeyaan waxa go-aanka iska qaadanaya qolo maleeshiya oo maaragtay axmaara waxa iska qaadanaya dad axmaarada u dhasho oo ku jira maxaan ku rahaa maamulka keenka ku jira waxa iska qaadanaya saraakiil ku jirta ciidanka militariga oo axmaara kaligood baa iska qaadanaya marka unitary commandkii ciidan maxaan ku rahay Addis Ababa iyo ciidankii Ethiopia ku jiray markaas ciidankii militariga Ethiopia ku jiray furinta hore ayaa kala go-ay hadda oo central commandigi baa meesha ka baxaad leedahay marka qowmiyadahan xabashida iyo faana iyo muxuu ahaa maleeshiyada ayaa ran garaynaya dagaalka hadda socda miyaad leedahay dabcan ha guutooyin fara badan iyo gaasas fara badan oo meesha jooga ayaan amarku una toos ba una u lahayn oo maxaan ku dhahay because markuu ciidanka meesha ku jiro waxa weeyaan waa inuu central commandkii u jiro waa inuu howlgeliyihii ama abaanduulkii u jiro waa in structurekii ama silsiladii amarka ee ciidanku ay jirto ilaa unitka ugu hooseeya marka xabada meel marka la dhaqaaqayo marka wax la ridayo marka wax la sameynayo marka la diyaar garoobayo commandku dadku sidaa u yaqaanaan ciidanka howlgelintiisii ayaa silsiladaas kala go-an oo waxa weeyaan Addis Ababa amarka ka yimaada si toos ciidankeeguma soo dhacayo iyaguna waxa weeyaan warbixinta ay bixinayaan si toos uma tagayo maxaan ku dhahay central commandkii ciidanka taasaa laga garan karaya oo amarka hadda waxa weeyaan waxa jeebka ku wata qoladan maxaan ku dhahay maleeshiyadan axmaarada ee faanada waxa jeebka ku wata oo markay doonaan iyagu siday doonaan amarka u bixinaya qoladan maamulka ee kilinka axmaarada waxa amarka siday doonaan iyagu markaa u bixinaya qolooyinkan axmaarada ku dhex jira saraakiishan axmaarada ku jirta militariga dhacdada labaad dadkaanu la wadaagayno ayaa waxay tahay shalay toole agadasi ciidankii fadhiyey militariga ahaa makalakiyaga loo yaqaano oo ayaa waxaa ay qoladan fano axmaaradu ay dileen 4 sarkaal oo oromo u dhashay oo markaas طبعا waxa weeyaan dagaalka macnaha daacad kama tiidin inaad isdiibtaan baad doonaysaan idinka macluumaadka bixiya idinka keer sameeya qodan tigreegana haddii macluumaad kasta la siiyo haddaan la siininba waxa weeyaan macluumaadka hoosta laga soo siinayo inta badan waxba uma taray iyaga laftoodu wax ka qarsooni ma jiraan qodan oo looga warramaya buurahan aan joognaa bay leeyihiin iyagii baaba la soo hadlayaba halkan aan joognaa intaasaan idiin jirnaa ma isdhiibaysaan iyagii baaba la hadlayaba marka afarta sarkaal ee oromada u dhashay ee sida gaarka u beegsadeen ayaa meesha ku jirta oo markaas qolooyinkii faanada ah iyo ciidamada axmaarada ku jirtay inta yimaadeen ay macnaha dileen si toos oo marka ay leeyihiin dagaalka ayaad maaragtay u qabanaysaan tigreega aad u qabanaysaan haddii aad rabtaan ciidankan aad la goosanaysaan aad u dhiibaysaan is-aaminid la-aan baa ka muuqata halkaas faanadan iyo maliisha ee aaminayeen ciidamada federaalka way ciidamada dhexdoodiiba sidaan soo sheegay oo macnaha u kala baxay qoomiyadihii kale iyo ciidamadii markaa ka soo jeeday xamaarada ka soo jeeda oo isla ciidankii ayaan is-aaminaynin oo iyaga laftoodu ciidamadaas ay laynayaan wixii kale ee qoomiyadaha kale
oromo leh sidaame leh cid kastaba leh soomaali leh wax kalaba leh haddii soomaali kuwa jirtay mooyiina ku jiraan hadda soomaalida laga saaray 500 baa ahayd dib loo noqday xabad kale ku sii dhex jirta ciidanka waa dhaweydaad loogu sii dardaray marka ciidankaasi waxay leynayaan ciidanka kale ee qoomiyadaha kala iyagoo ka aamin baxsan markaas iyagoo markaas filaya inay u gelayaan ama isu dhiibi doonaan ba maxaan ku dhahay tigreega isu dhiibayaan isla markaana caga juglayn iyo ay tahay cabsi gelin inayna maxaan ku dhahay haddii aad maxaan ku dhahay dagaalka goolgeli weydaan dee tan ay dili labada xabad mid dooran wey marka dhacdadaas afartaas macnaha sarkaal labo shaaraqayaal bay ahaayeen labana cornel bay ahaayeen I think inay laba muslim ahaayeen mid cornel abdisa la yidhaa kalena haftan something baa la odhanayay marka labada kale shaalaqa lafteeda mid axmed ibrahim baa la yidhaa kalena I think inuu something geesa inuu ahaa baan u malayn adigu dadku ayaan magacyadoodii waa laba shaaraqe iyo laba cornel oo oromo u dhasho oo ciidankii militariga ama kalakiyaaga ahaa ayay shalay toole ay dileen keliyana waxa u dileen oromaatiin arrinkaasina waa laga yaabaa inay qoladani markaas ay u beegsanayaan in qoladii la odhanayay oromo liberation army inay meesha ay kasoo dhow yihiin ama ay tuhmeenba inay furinta haddii ayna ku jirin inay durbe soo gelayaan marka jabhadda oromadu haddii ay meesha soo gasho inay iyaga laftoodu ciidankani uu ku biiri doono taasina waa tuunka labaad ee loo dilay aad baana loo sheegayaa oo elaadi inay kasoo dhawaatay meesha oo hadda ay xaaladda ay si toosa aynu arki doono dhaqdhaqaaqeeda macnaha deegaankan wallo la yidhaaha because gobolkan wallo la yidhaaho north wallo axmaarada u badan oo degta walow qayb ay oromadu special zone ay ku leeyihiin qayb kale oo waxaa jirtaa gobol oo oromada lafteedu ay leedahay isla wallada uuna oo south wallo ah marka south walladaasi aad dhaqdhaqaaqada ugu leeyihiin inay soo galaanna ay u badan tahay waxyaabaha aynu la wadaagi doono ummadda waxaa ka mid a in ay duleedka magaalada caawadii ka hor maanta inay joogeen ayna u badan tahayba in ciidamo gaari oo markaas inay magaalada already dhaxuleen meelaha qaarna ay cayimeenba markaas saldhigyada noqday meelaha qaar ee hadda xabaddu ka dhacaysay galabta iyo maanta gelinkii hore waxaa ka mid ah north wallo university oo ku taalla waqooyiga maxaan ku idhaha marka magaalada desi ku taalla halkaas oo markaa noqotay meel saldhig ciidan oo kale oo ay ciidamadan maaragtay maleeshiyaadka ama liyuhaylka lagu tababaro lagana soo maaragtay saldhig ay ka dhigteen markaas jaamacaddu waxay u bedeleen xero ciidan u bedeleen oo ardaydii jaamacadda dhiganaysa waxay ku dambeeyeen miyaa ka tagay jaamacadda I think inay jaamacaddii baa xidhan tahay laakiin compoundadii waaweynaa hangaradii iyo wixii iyo meeshii ay ardaydu seexanaysay iyo wixii oo dhan dabcan waxa weeyaan ciidamadii baa maaragtay qolalkii wixii oo dhan waana meesha markaa dagaalka laga soo qaadayay inta badan bay ahayd maaragtay duulaankii ugu dambeeyena hadda meesha qaybaha laga diyaariyey ee gaasas badan la dejiyey bay ahayd marka halkaas waxa weeyaan xabadihii ugu horreeyey maanta waxaynu arkaynaa habqankii in maxaan ku idhaha ciidan raxan markaas iyagoo isu soo dhiibay iyagoo qaar dhaawaca oo labada aynu arkaynay eriyada in ka dhow bay ahayd sida la saadaalinayana waxa weeyaan waxaynu hadda arkaynaa oo dadka macnaha indheindheeya arrimaha militariga iyo siyaasaddii ay sheegeen in ay ciidankii Ethiopia uu burburkii ama lakabkii ugu horreeyay uu collapse garoobay marka inay hadda ay u badan tahay macnaha ciidankii Ethiopia inuu ku dhow yahay almost 50% collapse ku dhow yahay ciidana haddii uu burburo waxa weeyaan waa sida maxaan ku dhahay domino effectiga waxa weeyaan lakab hadduu soo dimo lakab kalena uu kusii dhufanaya oo sii raacaya dhag waxa macnaha midba midbu kusii dhufanaya marka waxaynu hadda arkaynaa gebigii ugu horreeyey ciidanka Ethiopia hadda inuu dumay waxayna u badan tahay
inuu saameeyo qaybahan kale ee ku xiga marka collapse-kaasi wuu is wada saameynaya wax isla wada dumaya weeye marka halkaasaynu ka eegaynaa madaxweynaha kililka tigreega Debretsion Gebremichael oo maanta warbaahinta la hadlay welibana ku khudbeeyay luuqadda xabashiga wuxuu sheegay in ay muxuu ahaa ama uu la hadlay shacabka Desi iyo Kombolcha uuna yiri cabsanina gurihiina ka soo bixina inta ay soo galayaan muxuu ahaa ciidamada tigreegu markaas idinku ma tihiin biiru target kala target garaynayo halkaas wuxuu ka muujiyay kalsooni inay ciidamada tigreegu gali doonaan ma kula muuqataa inay maalmaha soo socda ay gali doonaan qabsan doonaan labada magaalo waxaan u malaynayaaba haddii magaalada centerkeeda mayna joogin qabalooyinka meelo ka badan oo ka tirsan maamulka magaalada Desi way haystaan oo waa meelahan ciidanku hadda ku jabay oo hadda meesha la yidhaaho North Valley University oo kale maamul ahaan waxay hoos imaanaysaa magaalada Desi bay hoos imaanaysaa marka kontarooladii iyo maxaan ku dhahay suburbskii u dhawaa ama duleedkii magaalada way fadhiyaan oo waxa weeyaan waxay fadhiyaan buurihii iyo meelihii maaragtay difaaca laga gelayay bay fadhiyaan sida ay u badan tahayna waxa weeyaan waqooyina way kaga imanayaan dhinaca barina way kaga imanayaan it looks like in ay markaa ay marka magaalada go'doon bay geliyeen maadaama ay buurihii saaran yihiin waxay weeyeen ay xireen marka go'doon bay magaaladu tahay marka magaalada way ku hareereysan yihiin dabcan waxa weeyaan amaradaana waxaan u malaynayaa inay hadda u sii gogol xaaranayaan haddii ay isku dayaan qolooyinkan magaalada ku dhex jira faanada iyo waxaan inay noqoto maxaan ku dhahay in magaalada lagu dhex dagaalamo oo lagu burburiyo ilamana ahaa iyaga laftoodu inay aada ugu sii degdegayaan jeer oo ay dadka localka magaalada degan markaas dadku ay wax ka maqlayaan ee maamuli karaya ama waa dad wax gara maaragtay ha noqoto dadkan inagu naqaano odayaasha aynu naqaano adu in dheergaradkooda ay ku daba feeshan yihiin u taliya in ay noqoto inuu inay ka dhigaan maxaan ku dhahay inay la yeeshaan macnaha wadahadal isla markaana ay la gaadhaan deal ah sida aynu soo aragno dabcan waxa weeyaan Desi kama duwanaan doonto qaabkii ay ula dhaqmeen meesha la yidhaaho Waldiya meesha qaabka ay ula dhaqmeen meesha la yidhaaho Lalibela iyo magaalooyinka kale waaweyn marka waxay u bannaan doontaa inay ay dadku ay iska gaadhaan dadkan ciidanka ee ku dhex dagaalamaya haddii ay taa noqon weydo shacabku ha wada dagaalamo marka xabada ku ridaan nimankan iyaguna magaalada ha go'doomiyaan marka waxay noqonaysaa dagaalku dee laba qof oo isgalo oo kale markaas nigtown baa la iska gelin laakiin sida ay sheegayaan madaxda tigreegu diyaar uma aha inay shacabna ku dhex dagaalamaan diyaarna uma aha inay magaalooyin burburiyaan waxaana markhaati inooga ah meesha la yidhaaho macnaha makale iyada oo buuxda oo wax walba yaalaan oo ganacsiga buuxo oo shacabkii dhex joogo oo maatidii dhex joogto oo ayaa ayar ka huleeleen way ka dhaqaajiyeen oo buurahay ku carareen war hadda soo dhacay haddii ay doonayaan inay wax ku dagaalamaan waxa weeyaan maqale ayay maxaan ku dhahay salka gashan lahaayeen oo difaacan lahaayeen oo lagu burburin lahaa laakiin waxa markii dambe burburiye dadkii bushka ka geliyay gurihiina gurtay waxa weeyaan ciidankii la soo geliyay meesha bilaa disciplineka guuldarrada kow uga hadda war Twitter-ka hadda soo dhacay wuxuu sheegay inuu berrito laga yaabo inuu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu la hadli doono shacabka Ethiopia isagoo markaasi diidi doono wax negotiation inuunan galaynin dagaalkuna uun istaagaynin laga yaabana inuu waddankuna ku soo rogo state of emergency arrintaas aad aragtaa wuu ku soo rogi karaa meesha la yidhaha Addis Ababa wuu ku soo xoogaa inta la joogtiyo way ku sii hayn karaysaa laakiin intee leeg buu sii hayn karaya waxa ma sii hayn karayo waxaan u malaynayaa inuu isku dayi doono inuu abuuro qoladan tigreega iyo ciidan kale la socotay OLAD iyo inuu u sameeyo magacdil uu sameeyo oo
dhibaatada inay iyagu ka mas-uul yihiin uu tilmaamo hase ahaatee ilama ahaanayo inuu sidii ninkii xaylamaran dhasaale inuu ayar dhigi doono odhan doono waan iscasilayaa maaragta Ethiopia wax soo dhiso maxaan ku dhahaa waxaaga heerkaa wuu ka gudbay waxa weeyaan dhiig baa daatay dhaqaalihii waddankaa burburay hanti baa burburtay dil fara badan baa dhacay dembi macnaha genocide baa dhacay genocidekina waa in meel ku xisaab xidhmo ummaddaa dhan intaa baabaaday ta kale waxa weeyaan halista taagan baa ah in ummadda Ethiopia ay u baaba'ayso qaarkeed maxaan ku dhahay gaajo u baaba'ayo weliba waqooyiga ha u badnaadaan oo markaas ah Tigray anfartii waad aragtaa lafteeda gaajadii waa haysaa walow Djibouti wax looga soo diri karayo laakiin somehow we don't know waxaa raashkaa loo geynayay maybe ciidankaa loo geynayay laakiin waxaanu hadda ogaanaynaa aynu arkaynaa in macaluushaasi ay saamayn doonto Tigrayga iyo axmaaradaba isku si inay u saamayn doonto marka haddii uu caqli uu markaa uu sheego inay tahay inuu yidhaha koridhooradii markaas waan u furay adduunka ay nala soo gaarhaan macaawino ummadaana maaragtay martida gaajada u dhimanaysana maaragtay adduunka iyo wixii waddanka gudihiisa loola gaari karayaba halaga gaaro caqliga ugu wanaagsan ee laga furi karaya taas weeye inuu ciidamada balogareeyey markaas koridhoorka Djibouti iyo koridhoorkan maxaan ku dhahay Sudan inuu yidhaaho markaas way furan tahay lama macnaha withdraw halkaa laga sameeyo taa waxaa dhici karaysa in ay noqoto arrin uu markaas adduunkuna markaas uu waxoogaa uu u arko waxoogaa caqli inuu nin caqli ku hadhay inuu yahay wixii intaa ka horeeya laakiin there's no point iyadoo maxaan ku dhahay qiyaas ahaan 400,000 la sugayo hadda bishan wixii ka dambeeya inay macaluul dhintaan oo bani aadam weliba maati ah oo haween iyo carruur u badan marka waxa weeyaan waxa sababtuna ay tahay dee raashinka Suudaan baa looga soo gelin karaa Djibouti baa looga soo gelin karaa diyaarad baa loogu keeni karaa laakiin isagii baan hadda maartay wax walba ma hela oo moodaya nimankan inuu xoogteeyo kuna xisaab xidhmaya markaas haddii 400,000 oo macnaha Tigray oo nafi hadday dhintaan qoladan macnaha dagaalamaysa waxoogaa way niyad jabi doonaan oo markaas dib u noqon doonaan wax noocaas ah farsamooyinkaasina waa farsamooyin hore ay ciidamadii macnaha maamuladii hore Tigray macnaha ahaayeen Ethiopia ay adeegsadeen sida Mingiste iyo Haile Selassie iyo kuwii ka horeeyay dadka macluul baa lagu leeyahay marka waxa su'aasha haddii aan si kooban u soo ururiyaa wax kale oo isku dayaya inuu eeda iska wareejiyo oo qolada saaro laakiin waxa kaliya ee logic ah ee laga maqli karaa inay tahay inuu yiraahdo koridorkii humanitarianka waan furay in wada hadal miiska la isugu yimaado I think intii ka horeysay inteena qoladan ayna waldiye iyo laalibele iyo dhulkaas inteena qabsanin adduunkan aad si xumaan markaas ay haydeen oo ogolaanshaha uu sameeyo inuu gorgorta ku furmo hadda laakiin waxa u badan tahay isaga inuu ku xisaab xidhmayso okay commanderka ciidamada Tigray Defensive Force ayaa wuxuu la hadlay warbaahinta oo sheegay in qowmiyadaha kale dagaalkan uu dagaalkooda ahayn loona baahan yahay inay isu soo dhiibaan ciidanka Tigrayga arrintaasi ma ku tahay inay muxuu ahaa aqbali doonaan qowmiyadaha kale ka dagaalamaya kilka xabashida ee ka soo horjeeda Tigrayga maadaama ay faanadii iyo milishida xabashidu ay leynayaan sida hadda sheegtay rag madaxa oo Oroma oo markaas ciidanka kamid ahaa وأنا أحمد سيدنا هربي سو شيء إني وحوي إن عيدا كيتوبيا مركز قرضا فيس كرينا يا معنا شيء دور كود دجالم يعني إنا مورال نو هينين isla markaana aynu u arkin dagaalkan dabcan waxa uu dagaalamayaan inuu meesha ay ku dagaalamayaan shacabkeedii iyo maleeshiyadeedii baa dhawr ka tooganaysa handadaysa bahdilaysa marka dhulka ay u dagaalamayaan iyo waxa u dagaalamayaan balaftiisu su'aal fara badan baa ka timi qaabka loo tiriid gareeyay inaynaba ciidan meesha ayna ka hayna kaanaba maxaan ku oraa waxa iyagii la soo kareystay amal oo kala inay yihiin
marka saraakiishu dabcan aad bay u moraal jabsan yihiin hoggaan fiican ma samaynayaan ciidanka laftiisu waxa weeyaan tababar fiican ma haysto qalab fiican ma haysto meesha uu joogana meel ku wanaagsan ma ciidanka kale qaybta axmaaradiina dabcan lafteeda ciidankan kale meesha ku jira waxay tustay inayna dadkan kale Ethiopia waxaan lagu dagaalamayo runta ee ah inay hal qowmiyadood moodo inay ummadda kale inay ka sarreyso iyadoo ay leedahay waxa markaa muuqanaysa طبعا يجي اون توبر لهين يجون قلب كودي وحودي محنكو راهي انا معنا مورال في عنا هيسلين درير في عنا هيسلين مش اي جوغان محنكو راه اندادي بديليو دبر كل توغنيا ay ku socoto waxay u badan tahay inay u dhakraariyaan oo isdhiibaan oo waliba ay si raxan u soo dhiibaan waa tan hadda aan soo sheegnay marka hore ah ciidankii Ethiopia waxa bilaabantay macnaha the first layer of collapse ayaa bilaabay macnaha darbigii ugu horeeyay ciidanka Ethiopia ayaa hadda soo dumay hal darbi waxaana wala kabla kabiisho daba yaala halka darbiga ugu horeeyay uu soo dumo darbiga kale ku dumaya kaasana kale ku sii dumaya waxa asaas isu saameynaysa waa waqti un baa markaa ka xiga waa matter of maxaan ku dhahay months bilaa ayaa u badan tahay hadii ciidanku si soo waara ma shaqo hadii ciidanku collapse garoobo wadamada macnaha dhibaatooyinka waxyaabaha ugu waaweyn ka dhaco waana dhici karaysaa in ay maalin walba waxaan aynu hadda aynu ka maqlayno media waxa uu yiri ciidamadu ay soo dhiibaan iyo waxaas mooyee waxay u badan tahay inay si toos ah ay maxaan ku dhahay communication iyo taarka inay ciidamadan saraakiisheedii waxooda ay kala xiriirayaan iyo wixii macnaha taarka wax ka maqlayo dhanba